dhammaan ummadda Soomaaliyeed u caddaynaya anoo ku hadlayo afka mareexaan sida daarood inaan hil iyo hoo iyo xinjir iyo xoolaba la garab taagannahay difaaca Puntland hadduu laba libaax hilib dhex maro wa ku murantay macmacaanka iyo kuruska wala isku maagaa misna waxay heshiyaan markuu dhidir u muuqdaa Jubbaland waa Puntland iyo SSC Sool Sanaag iyo Cayn Puntland Sool Sanaag iyo Cayn waa Jubbaland sade waa kablalaxna waa sade waa dun wada dhalatay iyo dir walaalaha qodob dhammaan shacabka daarood anoo ku hadlayo afka mareexaan sida daarood waxaan leeyahay maanta waa in dani la garab istaago mareexaan sida waa garab taagan yahay waa hoggaanka daarood ee maanta jira weeyo ma amaana Puntland waa badbaadada qaranka Soomaaliyeed 2006 xasan culusow iyo cabdikariin xuseen guuleed iyo kooxaha canaasirto hadda ku xaraysan markay iidaalayo mooda taagnaayeen Allahu akbar lahayn ay bambada tuurayeen kuwii xinjirtooda iyo xoolahooda qarannimada Soomaaliya ku bixiyay oo geeyay caasimadii qaranka oo dhidibada u aasay bay ahaayeen bal halgan iyo wax hore iska dhaaf haddaan nabadda loo wada jabnayn maadiga oo jiis ah haddii la diiday Soomaalinimo qolo lagu faani karaa anaa Ilaahay iga dhaliya anaa daarood Ismaaciil Ilaahay iga dhaliyay aniga Soomaalinimada calankeeda u dagaalamay haddana difaacayo aniga maanta burca agteedana ka taagay awdalna iga dayata waxaan leeyahay ninka la yiraahdo Siciid Cabdullaahi Sheekh Maxamed waa Siciid Daniye waa hoggaamiyaha daarood oo ruuxiga ah waxaynu ku difaacaynaa cod iyo caraf iyo cudud ciddii isku daydo inay cagajuglayn ku daydana caloosha toori laga gelinayaa waa la isleefayaa la isma baryayo ciddii isku daydo inay waxa weeye ay qarannimadii Soomaaliya oo la beecageeyay oo la duleeyay oo uu difaacayo isku dayda inay hagar daamaysana waa aragnaa waxa haray dad baa waxay leeyihiin waxa hadlay ra'iisul wasaare daarooda waxaan taa kaleenahay waa shaqaale jamhad reer ah ama jamhado isbahaysi ah nin shaqaalaha u aweeyo ma jirto dawlad Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaare loo noqdo ma jirto dawlad Soomaaliyeed oo aan dhisannay xubin ka nahay ma jirto dawladnimo Soomaaliyeed hadday dawladnimo Soomaaliyeed joogto hubkii xuduudda NFD lagu difaacayay baanbarqadi xasan culusow dikreeto inta soo qoro baan kuwa doqoma run moodeen aan doonayaa markaa inaan idhaahdo reer daaroodow xasan culusow iyo fiqi 91 baa loo noqonayaa baa Ilaahay u aqbalay reer daaroodow dhammaan shaqaalihii daarood oo joogay caasimadda qaranka meeshii ahaan jirtay hadda noqotay goobka hawiye waa la cayriya reer daaroodow meeshii la rabay xasan hadduu madaxweyne yahay gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose iyo Baay iyo Bakool buu soo aadi lahaa la dagaalanka argagixisadana ay run ka tahay waxay ahayd inta Soomaalida kale ay degan tahayna in argagixisada loo soo eriyo dhulka hawiyana laga qaado ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle iyo Galmudug loo kaxeeyay ujeedadu waxay ahayd waqooyiga gobolka Mudug in lagu weerarayo waqooyiga gobolka Galguduud hamiga doqonka oo urur Soomaaliya wuxuu ahaa Puntland tagaynaa iyo cadana ha imaada Muuse Biixi ra'iisul wasaare Sheekh Saxaaqan la magacaabo mar labaad waxaan u mahadcelinayaa guul aan leeyahay Sool Sanaag iyo Cayn iyo walaalaha hartida waqooyi bari iyo waqooyi galbeed ayaga oo aan koomba kala u yeeran xarla koombe iyo gari koombe iyo ilmo koombe iyo afsama kuumada midna aan u yeeran geesinimada iyo huritaanka baan uga mahadcelinaynaa waxaan ballan qaadaynaa haddii la isku dayo wax ka badan hadal in lagu sameeyo waqooyiga gobolka Mudug
markii baraxlay laga reebo gobolka mudug inta kale waa dhul daarood ciddii isku daydo damac isaas ah na waxay cabaysaa